السلام عليكم صاحب يال كسو دوادا kanaalkiini alnaqaay media youtube iyo facebook page oo aad uga barateen warar sports oo xaqiiqda ku saleysan mar walbana ku dadaala inuu idin soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyay ee sportska maantana runtii aad u xiiso badan waxa la idinka doonaya kaliya waa inaad ku xirnaataan oo aadan seegina wararka subscribe-ka like-ta share-ta iyo comment-iskana waa dhankiina haddan aan u guda galno barnaamijkeena oo qodobada aan ku soo qaadanayno ay ka mid yihiin Thomas Tuchel oo qiray in Arsenal ay ka awood sareysay kadib guuldaradii 4-0 looga adkaaday Chelsea. Barcelona oo lacagtii ka dhamaatay awgeed loogu guuleystay hanashada Kalidou Koulibaly. Maamulaha Chelsea Thomas Tuchel ayaa sheegay inuu ka walwalsan yahay horumarka kooxdiisa uuna ka walaacsan yahay dadaal la'aanta ciyaartoydiisa inta lagu guda jiro safarkooda ciyaaraha isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub ee Mareykanka kadib markii ay guuldaro 4-0 ah ka soo gaartay Arsenal Sabtidii. Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka iyo Albert Sambi Lokonga ayaa goolal guul raaxo leh horseeday ka dhaliyay garoonka Orlando Camping World Stadium iyadoo Arsenal ay soo gabagabaysay safarkii ay ku mareysay Mareykanka oo ay badisay dhammaan 3 kulan ee ay ciyaareen. Si fudud uma aanay ahayn tartan. Tuchel ayaa u sheegay suxufiyiinta qaybta walwalka leh ayaa ah in heerka go'aan qaadashada jir ahaan iyo maskax ahaan kulanka oo ah mid aad ay nooga sareysay Arsenal. Xaqiiqdii ma aysan ahayn shaxdeeni ugu xooganeed. Tani waa qayb ka mid ah sharaxaadda, laakiin waa qayb yar. Ma damaanad qaadi karo inaan diyaar ku noqon doono 2 toddobaad gudahood, ayuu raaciyay. Isagoo tixraacaya furitaanka Premier League ee Chelsea iyo Everton 6 August. Chelsea ayaa guul ka gaartay kooxda reer Mexico ee Club America waxaana rigoorayaal ay ku garaacday kooxda Major League Soccer ee Charlotte FC oo kulamadii hore ee saaxiibtinimada ay ku ciyaarayeen Mareykanka. Ma garanayo haddii aan weligay guuldaro la kulmay kulan ka hor xilli ciyaareedka 4-0. Ma xasuusan karo inaan ku guuleysanay 2 kulan oo isku xiga xilli ciyaareedka ka hor. Tuchel ayaa sidaas yiri, aniga waxaan ahay khuraafaad leh ama qof aaminsan khuraafaadka. Ma garanayo si aan u sheego ciyaarahaaga xilli ciyaareedka ka hor oo xumaada waxay ka dhigan tahay xilli ciyaareedkaaga oo xumaada. Kadib markii ay la wareegeen Todd Boehly, Chelsea ayaa keensatay Raheem Sterling iyo Kalidou Koulibaly, laakiin Tuchel ayaa ku daray natiijada kooxda xilli ciyaareed ka hor inay cadeeyaan inay sax tahay baahida loo qabo in lagu kordhiyo kooxda. Nasiib daro waxay cadeysay ra'yigayga isbuucii ugu dambeeyayna waxa xaqiiqsantay fikradayda. Tuchel ayaa yiri, waxaan dareemayaa inaan saxanahay markaan eego xilli ciyaareedkii hore iyo qaybihii ciyaarta ee aan ku dhibtoonay iyo sida aan u dhibtoonay. Waxaan helnay ganaax, ciyaartoyduna way naga tageen. Waan ognahay in ciyaartoyda qaar ay isku dayayaan inay naga tagaan, waana halka ay taagan tahay. Waxaan helnay codsi degdeg ah ciyaartoy tayo leh. Waxaan helnay 2 ciyaaryahan oo tayo leh, shaki kuma jiro, laakiin ma nihin kuwa u tartamaya sidaan oo kale. Nasiib daro maanta waan arki karnaa weeraryahanka cusub ee Arsenal ee reer Brazil Jesus ayaa dhaliyay goolkiisii 4aad ee isku diyaarinta xilli ciyaareedka, laakiin waa laga saaray ciyaarta kadib markii uu dhaawac soo gaaray. Waxa uu jug ka soo gaaray muruq oo xanuun ka dareemayo qaybtii hore, ayuu yiri maamulaha Arsenal Mikel Arteta. Waxaan go'aansanay inaan bedelno oo wax khatar ah sii gaarin. Haddana bal aynu fiirino qodobkeena xiga ee Barcelona ku saabsan oo shiiday iyo lacag la'aanta ku dhacday. Waxaa daaha laga qaaday in Barcelona ay ugu dambeyntii lacagta ka dhamaatay kadib markii ay ku guuldareysatay inay kaga guuleysato Chelsea la wareegidda Kalidou Koulibaly. Kooxda reer Catalan ayaa u muuqata mid lala xiriirinayo qof walba xagaagan ilaa iyo inta suuqa kala iibsiga uu socdo. Waxa ay haystaan mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Waxay ku soo iibsadeen Robert Lewandowski iyo Rafinha adduun dhan 90 milyan oo geni. Waxay sidoo kale beeca xorta ah kula soo wareegeen Frankie Kessie iyo Andries Christensen, laakiin intaasoo adduun ah oo lacag ah ayay ku qarash gareeyeen laacibiintaas iyadoo ay haysato dhaqaale yari. Kooxda ayaa xitaa iibisay qaar ka mid ah xuquuqdooda TV-ga La Liga si ay u dhisaan kooxda mustaqbalka dhow. Laakiin madaxweynaha Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa xaqiijiyay in Barcelona ay hadda lacag la'aan tahay maadaama ay Koulibaly u soo gashay ilbiriqsigii ugu dambeeyay. Chelsea ayaa doonaysa in ay yareyso dhibaatada dhanka daafaca kadib markii ay Napoli kala soo wareegtay daafaca dhexe ee
aadka loo qiimeeyay ee Koulibaly kaas oo ay kula soo wareegtay 33 milyan oo gini. Kooxda ayaa xagaagan ku weyday Christensen iyo Antonio Rudiger labadaba beeca xorta ah waxaana ka maqnaa dooqyada dhexe, laakiin xiddiga reer Senegal ayaa ka caawiyay xoojinta kooxda Thomas Tuchel, laakiin waxa ay tartan dambe kala kulmeen Barcelona. Isbeddelka ayaa ku socda Chelsea iyadoo Barcelona ay sidoo kale muujisay xiisaha ay u qabto Raheem Sterling iyo Rafinha, kuwaas oo ay Blues isku dayday inay la soo wareegto. Chelsea ayaa ku guuleysatay tartanka loogu jiro Sterling, laakiin Rafinha waxa uu dhaqaaqay Nou Camp iyadoo Leeds ay jeebka ku shubatay 49 milyan oo gini oo lagu daray waxyaabo dheeri ah. Laakiin madaxweynaha Napoli ayaa daaha ka qaaday in Koulibaly uusan ka iibin karin Barcelona maadaama aysan wax lacag ah haysan, taasoo la micno ah in lacagtooda ay ugu dambeyntii dhammaatay. saaxiibayaal warkeeni maanta intaas ayuu noogu dhan yahay, waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noogu xirantihiin mar walba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.